waa subax dadka reer Afgooye u ah mid guul ah waayo waxa gacanta lagu dhigay laba ragood oo doonayay in ay gabar yar oo degmada ku nool afduubtaan kadibna ay lacag 500 oo dollar uga sii iibsadaan koox ay u kala shaqeynayeen labada rag. Haddaba sidee wax u dhaceen? Marka hore ciidamada ayaa qabtay mid ka mid ah raggan doonayay in gabadha ay afduubtaan. Ninka la qabtay ayay ciidamadu geeyeen meel ka tirsan degmada halkaasi oo lagu wareysanayay maadaama markii la qabanayay uu gacanta ku sitay dhalooyin tiro badan qaarna bacda ay ugu jireen kuwana gacanta uu ku haystay kuwaasi oo ay ka buuxeen maandooriyaal. wax yar kadibse taleefankiisa ayaa soo dhacay ninkaasi. Markii uu soo dhacayna ciidamadu waxay ku amreen in uu la hadlo oo si fiican uu la hadlo qofka soo wacaya isaga oo aan waxba laga dareemeynin. Qofkii soo wacay oo rag ahaa ayaa u sheegay inuu gacanta ku hayo gabar yar isla markaasna hawshii ay isku toostay. Waa marka ay ciidamadu shakiyeen marka haladaas uu ninkaasi yiri kadibna waxa labada rag ay ku balameen bosteejada Torotoro Afgooye iyada oo uusan dareensiinin in gacanta lagu dhigay maadaama ay ciidamadu sidaasi ku amreen. Halkii ayaa la soo aaday oo lagu balansanaa mise waxa loogu yimid nin kale oo gabar yar gacanta ka haya ciyaarsiinaya. Markii ayaana sidaasi labadoodiba gacanta loogu dhigay. Labadan rag oo la wareystay ayaa sheegay inay u kala shaqeynayeen laba hay'adood oo kala duwan oo ka shaqeysta xatooyada caruurta isla markaasna si iibiya. Inkasta oo ciidamada ay ii sheegeen in xogaha qaar aysan dooneynin in ay bulshada la sii wadaagaan, haddana waxay sheegeen in labada nin kaliya aysan ahayn shakhsiyaadka degmada Afgooye ka howlgala sida ayaga afkooda laga soo xigtay oo ay yihiin koox dhalinyaro ah oo hawshan u soo banbaxday isla markaasna lacag ka sameynayay. Lacagta cunugba ay ku qaadanayeen ayay ku sheegeen inay ahayd 500 oo dollar. Gabadha yar ee maanta alle u badbaadiyay ee raggani ay doonayeen in ay iibsadaan ayaa la ii sheegay inay la dhalatay laba gabdhood oo 3 sano jir iyo 4 sano jir ahaa oo horey loogu kufsaday degmada Afgooye. Dadka degmada Afgooye dareenkooda waa ay muujiyeen haba u badnaadaan waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka kuwaasi oo isku soo baxay isla markaasna aad uga dhiidhiyay. Waa dareen muujinaya sida ay isugu duuban yihiin dadka reer Afgooye marka loo eego kuwa gobolka Banaadir oo caruurtooda habeen iyo maalin la iska gurto iyaguna baraha bulshada kaliya u soo qayla dhaamiya ayaga oo bulsho ahaan isugu xirneen. Tan waxay tusaale cad u tahay in la isku xirnaado ciidan iyo shacabba inay meesha ka saari karto khatarta bahalnimada ah ee caruurta Soomaaliyeed xilli kasta qabsan karta. Shakhsiyaadkan hadda gacanta lagu hayo ayay ciidamadu sheegeen in xog intaas ka badan laga sii ogaan doono isla markaasna la soo taagi doono maxkamadda iyaga oo xukunka sharciga uu ka qabo lagu fulin doono shakhsiyaadkan bahalnimada u shaqeysanayay ee caruur badan oo Soomaaliyeed laayay. Taliye ka tirsan ciidamadan oo taleefanka aan ku wada hadalnay wuxuu ii sheegay in raggani ay tilmaameen shabakadooda inay tahay mid aad u weyn Afgooyena ay hadda soo gaarsiiyeen. Xaruntooda ugu weyn sidoo kale ay ku taalo gobolka Shabeellaha Dhexe halkaasi oo iyaguna caruurta ay geeyaan si gaar ah degmada Jowhar. Caruurta ugu badan ayay tilmaameen shakhsiyaadkan inay ka soo xadaan gobolka Banaadir oo ah meel aysan dadku inta badan ku baraarugsaneen khatartan jirta sida ay iyaguba sheegeen. Hase yeeshee qorshahoodani maanta waxa uu fashilmay markii ay isku dayeen gobol dadkiisa ay isku duuban yihiin isla markaasna aad loola socdo dhaqaaqa caruurta in ay ka jalaabtaan. Waxaana halistan ay dabcan ayaguba hadda halis gelisay noloshoodii maadaama ayaga oo ahaa koox faa'iido doon ah caruur badanna laayay maanta gacanta lagu dhigay. Waa war farxad u ah shacabka Soomaaliyeed oo dhan ama gobolka Banaadir ha ahaato ama degmada Afgooye. Shakhsiyaadkiina ciidamada ayaa sidaasi gacanta ugu dhigay oo sii galbinaya haddana waxa lagu wadaa su'aal weydiino tiro badan iyada oo la doonayo in la soo saaro shabakadooda meelaha ugu waaweyn. Inkasta oo dadka qaar ee arrimahan falanqeeya ay sheegeen in aysan daw ahayn in muuqaalka dadkan la sii baahiyo baraha bulshada la dhigo oo ay keeni kartaba in shabakadii ay ku baraarugto, haddana ciidamadu waxay sheegeen in dadka la tuso wajiga dhabta ah ee shakhsiyaadkan inay tahay arrin muhiim ah oo aysan ahayn mid in la qariyo mudan. Waayo waxay sheegeen in ciidamada guul weyn oo ay gaareen ay tahay kuwa kale ee dhagarta noocan wadana ay sidan oo kale u bartilmaameysan doonaan gacantana ay ugu soo dhigi doonaan.
waalidow waxaan idinkula talinaynaa inaad caruurtiina feejignaan dheeraada u yeelataan oo aad iska hubisaan, waayo hadda waxaad arkayso oo labadaas qof aad u jeedo waa horudhaca halisaha tirada badan ee magaalada ka jira. kuwa kale oo aan la ogeyn ayaa jira oo xarumo waaweyn ku dhex leh gobolka Banaadir oo aan horeyba uga dignay. mahadsanidin.